qolofkeeda meel kuma ogi tan laakiin waxaan u maleynaa tan inay qolofkeeda tan yahay tan qolofkeeda ku xageen dhige kolley saddexdan inay isleeyihiin u maleynaa doctor horta saddexdan ali soo qoray bari isha marka hore liga qabanay koobdii hore saddex bari markaan wado maalintii afaraad anoo isleh alleeyahay ama roonaatay laakiin wali xanuunku igu jiro islaan in adeertay ay timid waxa ay xanuunkii waan hayaa in aan ka roonaadan waa u maleeyahay see wax yeelaan waxay tiri dhakhtar meelahan fariisto oo hadda koor aan u tagay sidaadoo kale leeyahay soo hadda isha kuma ilmeyso oo casaan yar ma lahaan jirin intaas iyo in ka badanba isheeda waa ahayd laba goojo bas uu soo qoray maalintii afaraad ba faya ah waxaan inta iska days aan dhakhtarkaas ku geeyo waxaad il waaye anigana yani qoladii itraado meeshaas ku raa inaan raacaan ku qasbana gabadhi waa raacay sidii inaan noqoto dhakhtarkii laba goojo iyo qoray inay kuwaan ahaayeen u maleena labadaas markaan isticmaalay subaxii waxaan soo kacay indhahayga bararsan carrada dhan isla holacday hay maqashiinay dhakhtarkaada hay maqashiin bukaanada markaas laba ay kala baxaan bukaan u laabanayo dhakhtarkii una sheegay inuu dhakhtar kale aaday iyo bukaan marka horeba aanan aadayna dhakhtarkii u laabanay laakiin laga yaabo inuu daawadii dhakhtarkii hore uu qoray uu laabto dhakhtarkii ma aadine daawadii saddexdii dawo oo markii hore aan isla hadlaylahay waa ku roonaan rabtaa aan dib aan ugu laabtay sidii aan ishi ahayd oo wax maana ka dareemin door dhakhtarna waa ku wareega hadda maanta waxaan isir dhakhtarkan haddana bal ku tijaabiyo ku fiiri xaaladan waa xaalad ee dhakhaatiirta dhan ay arkaan gaar ahaan dhakhaatiirta indhaha mana ka marna dhakhaatiirta kale oo cudurrada kala daaweeya in bukaankii uu la yimaado bac buuxdo daawo ah uusan xataa kala garan waayo goojada furkeedii iyo qolofkeedii iyo kii u qoray iyo kii kaleba arintaas waxyaabo badan asbaab u ah ama keenay inuu bukaanka sidaa u dhaqmo arimahaas inaan maanta ka hadalno ayaa isku dayayna magacayga waa Dr. Fawziyo Xuseen Mahad oo dhakhtarada indha ah muuqaalkii yaraa isla aragnay waxbaa keenay bukaanka in bac uu ku aruuriyo intaasoo goojo oo kala duwan oo dhakhaatiir badan u ka keenay waxbaa sabab u ah uu aaminsanaa ama waxyaabo badan oo qalad u fahansan yahay arimahaas oo keenay bacdaas ayaa maanta rabnaa in aan ka hortagno oo u badan ama aan ku soo koobay 10 qodob qodobka ugu horeeya ma jirto wax la yiraahdo in goojada dhakhtarka uu ku qoro 3 bari gudahood aad ku roonaatid oo ku caafimaadid maalinta afaraadna aad dawada iska tuurtid oo maalinta afaraad hadii aad caafimaadi weysidna sida aad dhakhtarkiiba aad ku laabo weysido oo aragtid inuu dhakhtarka yahay dhakhtar aan wax daaweyn karin goojada dhakhtarkaada ma sameeynin qolooyina sameeyay chemicals la isku daray ayaana laga sameeyay shirkadaha sameeyayna waxay sheegeen ama ay muddo u qabteen dawo walba in hadii intaas lagu qaato oo qofka laga yaabo in caafimaadku ku gaaro weyn kala duwan yihiin ayadoo loo fiirina cudurka markaas kugu dhacay tusaale ahaan qaleelka ugu fudud wax la daaweeyo mana la dhihi karo qofka week ama 2 week ama xataa bil inuu ku reesto bal waa goojo loo baahayo qofka muddo inuu isticmaalo si uu dareemo in uu roonaaday cudurrada qaarkood waxay u baahan 3 bilood in la daaweeyo cudurrada qaarkood waxay u baahan in 2 week la daaweeyo dhakhtarka asaga ayaa ku sheegi karo inta muddo oo daawadan u baahan tahay inaad isticmaashid asaga ayaana laga rabaa
in aad ku laabatid marka ayaan aad isticmaashay ama muddo ka yar inta isticmaashay aad shakisid in dhakhtarkaada aad u laabatid oo aad tirahdid doctor ani cudurkii weli waxbaan dareemayaa sidee wax u jira waxaaba dhacdayba in aad wax ka dareemi weysid oo intuu ku yiraahdo dhakhtarka 2 week soo isticmaal ama 7 bari soo qaado daawadan isku shub in aad wax iskaga dareemaysid maxaa la rabaa markaas inaad dhakhtarka la aajida maya waa inaad dhakhtarkaada u laabatid waa inaad u sheegtid sida wax u filanaya ama adiga u filanaysa in weli aadan gaarin dhakhtarka asaga ayaa sheegi karo maalintii ku arkay uu dawada ku bilaaway ishaada sidee ahayd iyo maanta sidee tahay asaga ayaa isla barbar dhigi karo ee dhakhtar cusub oo aadid isla ma barbar dhigi karo marka waa inaad dhakhtarkaada u laabatid u sheegtid wax isbedel ah waxa qaldan haduu dawada ka bedelaay haduu kulay alla ilaahay ani waa u jeedaa in wax isbedelay laakiin adiga ma dareensanid dawada ii wad waa inaad dhakhtarkaada aad ku kalsoonaatid oo aad warkiisa ilaa aad heer isla gaaraysid aad isla socotiin waxaaba dhacdayba dhakhtarkii waa u laabatay wuuna ku sheegay wixii uu ku sheegi lahaa waxaana dareentay waqti uu ku qabtay gudahood inaysan wax isbedel ay jirin ama isbedelku uu yar yahay go'aanana qaadatay in dhakhtarka iska bedeshid waxa qaad waa iska bedeli kartaa okay bid ii samee marka dhakhtarkaas kale aad aadaysid wuxuu xaq kugu leeyahay in aad u sheegtid in xanuunkan intaan uu ka horeeyay oo dhakhtar kale aad la xiriirtay oo dawooyinkii dhakhtarkaas uu ku qoray aad hore u soo qaadatid ama warqadii waayo cudurada indhaha maaha cuduro inta markii laga fiiriyo dhiig inta lagu diray lagu leeyahay baaritaankaas aan sugeynaa waxa ka soo baxay sug ee waa calaamado uu dhakhtarka indhaha uu ka arki doono qalabka uu isticmaalayo qalabkaasoo keenay in isha 15 jibaar ama 25 jibaar uu ku arko waxaad aad arkeenin marka hadii inta daawo hore u soo qaadatay calaamadihii caadiga lagu yaqaan cudurkaada isbedeleen ama wax ka kala hareen wuxuu u baahan yahay dhakhtarka in aad u sheegtid in dhakhtar uu ka horeeyay dawooyin uu qaatay dawooyin uu ku soo qoray dawooyinkaasna aad qaadatay dhakhtarku hadii dawadii uu ku qori lahaa iyo midda isticmaalaysid isla mid yihiin waxa u badan tahay inuu ku dhihi doono tan midda ku qor lahaa waa isku mid tan waa ay sii wadaysaa middan kalena waxa isleeyahay alla ilaahay mid ka talaya badan ayaa jirtay taas ayaan ku qorayaa middan waa ka bedelayaa haba qaadanin dhakhtarka cusub sidoo ku yiraahdo uu qaado daawada dawooyinkii horene iyo kuwa cusub ha isku darin oo kuwii hore uu dhakhtarka ka joojiyo isku day inaa markaas bartaas aad ku turtid oo aadan guriyaba aad u qaadanin badanaa bukaano waxaa jiro cudurro badan laga yaabo in xanuuno badan iskugu yimaadeen dawooyin badan ay qaldeen kuna yimaadaan ayagoo bacdii dhowr dawo oo dhowr nooc kala duwan ay ku jirto markaasoo kale waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu ku yiraahdo si dawo cusub aan kugu qoro ama isha ay wax aan uga fahmo waxaan u baahanahay in ugu yaraan 48 saacadood aad iska joojisid wixii goojo dhan aad isticmaali jirtay kadibna aad iimaatid dawooyin badan iyo dhakhaatiir badan marka isku soo martay isha waxay sameynaysaa calaamado muujinaya inaysan xamili karin wax kale waxaa loo baahan yahay in time la siiyo isha ay ku soo saarto wax un calaamadihii hore tirtirmay si fursad dhakhtarka cusub aad aadaysid qasab ma ahan dawada in dawada si ay wax u daaweyso waa inay dawo qawowdahay iyo qolo aaminsanba in dawada si ay wax u daaweyso inay kulushahay tan sax maahan dawooyinka waa chemicals la isku daray shirkadaha sameeyayna waxay target gareeyeen cudurka hadii marka daawada ay kulusha ama ay qawowdahay waa wax un chemicalskaas ay keeneen maahane ma muujinayso in qawowgana uu fiican yahay kuleelkana uu fiican yahay taas laguma eego arintaas marka taas mar walbana bukaanada waa aragnaa oo waxa laga yaabaa in bukaan ala kulantidu ku yiraahdo ana ishi xanuunaabi ahaye goojadii marka ku shubayne carro waa isla holcade
markaasaaba xanuun meel istaaga garan waay maxuu daaweynaa marka dhakhtarkaas oo goojadaas holcaysa ii soo qoray oo meeshii daawadayba qofkiiba uu ku tuuro marka taas ma ahan qiyaas ama cabir lagu cabiro in goojada ay fiican tahay ama inay xun tahay arinta ay sameeyaan bukaanada inta badanna aan isleeyahay waayeelada oo badan in goojooyinkooda loo qoro ayaga aanan qof gooni ah aanan loo xilsaarin markaasaa waalidkii ama hooyaha ahaata ama aabaha ahaada ama adeer ama eedo kole dadka waayeelka cunugii meesha soo maraba in la yiraahdo hebel kaale duca qabe isha iiga shub daawadii oo ishii cunuga halka dhibacda loogu talagalay iyo meeshii la rabay in loogu talagalo oo waxyaabahaas aan rabin hada faafahintooda aan galo waayo waxaan uga hadlay video dhan oo aan ku sheegay isticmaalka saxsan ee goojooyinka oo aad ka heli kartiin page-kayga cunugana waxaas wax ka fahansaneen aanan ogeen diir isha iiga shub daawadii oo meeshii halkii dhibac loogu talagalay 3 dhibac ama 4 dhibac iskaga daba timid oo intaanoo dhan ay goojo noqotay oo saan la iska yiri haddana tan uu ku shubay maamadii subax markay soo kacda ama adeerkiiba uu subax soo kacay carra wada bararsan uu la soo kaco uu markiiba yiraahdo haye masaana ishi keentay ma indhihi saa ii bararay dhakhtarkaas haba igu sheegay daawadiis iga dhaqaaji daawadan soo indhahayga uma jeedin waa indhihi waa iga ridi tagay macluumaadka aad moogtihiin ayaa ah dawada maxaa loo leeyahay pocketkaas ha lagu shubo oo hal dhibac ka bada isha ma qaadayana lagu shubin dawooyinka chemicalska ka samaysan yihiin ma xamili karto isha hareeraheeda maqaarka ka samaysan maqaarku ilaahay gacmaheena iyo jirkeena inta kale u sameeyay ya maqaarka la kor saar isha korkeeda way kala duwan yihiin maqaarkana ugu julcan ma xamili karo marka wuxuu jirkaada kala xamili karo iyo waxa ishaada gudaheeda loogu talagalay goojooyinkan chemicalskooda isha ma xamili karto maxaa ka dhalanayo waxa ka dhalanayo barar meeqa aragna bukaano intee dawooyinka sida qaldan u isticmaalaan ishiyo bararsan lagu keen liirada hayahe goojooyinkii saana ka dhacday marka goojooyinka sida caadiga saxda oo loogu talagalo loo isticmaalana barta bukaanadan waayeelkana ku haleeya qof weyn ee ilmo walbo meesha marayo yaana laga adeejinin goojooyinka dhakhtarka uu ku qoray waxa laga yaabaa inay ka mid tahay boomaato sideedaba boomaato waxa la isticmaalaa habeenkii ayadana sida goojado kale ayaa waxa lagu shubaa bartaas cas ayadoo kor la fiirinayo mana loogu talagalin in loo marsado sida indhakuusho kale oo dawadii boomaatada ahayd geeskan ilaa geeskan la gaarsiiyo gudahana la gelinne korka laga mariyo sida boomaatada looguma talagalin taasna waxa ka imaanaya in qaybtan hoose ee qofka ay soo bararto waayo ma xamili karto waxa loo rabay in isha gudaheeda laga xamilo ama isha gudaheeda laga isticmaalo boomaatada waxay ka samaysantaa oo lagu daraa kiimikadaas wax yaro sida saliido kala ah marka waxay u nugushahay marka isha kuleelkeeda lagu shubo inay faafto taasa waxay keenaysaa inaadan u baahanin in waxa tirada badan aad ku shubaysiin lagu shubo oo wax yaro oo boomaatada kamid ah oo dhibic ah in lagu aadiyo dhaxbartanka isha kadibna indhaha la qabto kuleelkaas yarka oo isha ay leedahay ayaa keenayo in ay boomaatadii geeska gees ay isha ka gaarto marka isticmaalka qaldan ee boomaatooyinka indhaha waxay keenaan in bukaanka uu ka cabto in indhaha hoostooda ee barartay ama isha dhan isla barartay taasoo keentay in bukaano badan markii boomaato loo qoro dhahan ma boomaato naga daaya ama asaga qalad u isticmaala ama qof kale qalad u isticmaalo u arkay boomaatada sida saxsan hadaa u isticmaashid bararkaasna ma arkaysid bal waxa laga yaabaa inay goojada ay ka fiican tahay waayo goojada iyo boomaatada waxa yani waxay jaanis fiican ee leedahay in isha ay ku sii jirto meesha ay goojada isla markiiba laga yaabo in isha ay ka baxdo marka xagga daaweynta boomaatooyinka aad u wanaagsan marka boomaatada hadiidine
waxaad barataa sida qaabka saxsan oo loo isticmaalo. Soomaalideena waxay ka siman yihiin in goojada qofka uu isticmaalo sida asaga rabo. dhakhtarka wuxuu yiri 5 soo maahnaa ma aan 5 jeer ma jaaniskaas ma hayo subax iyo habeenkii ku shubaya ama dhakhtarku waxa laga yaabaa inuu yiraahdo 2 saac hal mar 2 saac hal mar maayada u holla ah yani see 2 saac hal mar ugu shubaa maya 5 jeer ku filan sidii dhakhtarkii uu yiri inuusan u sameeynin eena rabaanne in waqtigii oo dhakhtarku uu filanay in ishaan ay ku caafimaadaan oo la yiraahdo markii laga yaabo 15 ber laga maqnaado ama 10 ber laga maqnaado doctor ani ishi wax kama dareemoy bas sidii buu waaye haye saa u isticmaasha yani ani marka jaanis helo waa ku shubaa marka jaanis heshto see ah yani subax yaabeen oo ku shubaa marmar maalinta jaanis helo 4 jeer waa ku shubaa maalinta jaanis helo 3 jeer waa ku shubaa yani jaaniskayga aan la fiirsadaa taas ma anfacayso taasna ma keenayso in ishaada sidii la rabay ay u caafimaado dhakhtarkaas sidoo ku dhahay goojada u qaado ee sida aad arabtid way adag tahay in ishaada ay ku reysato waxaan ugu soo kordhay waayahan markii jaamacadihii bateen dadkii caafimaad la wada galay hadee tahay caafimaadka dhinac walba yani dhakhtarnimo lama sheegay kalkaaliye shaybaar wax kasta dhalinyaradeena wax bartay waxa soo kordhay waayahan aan aad u aragnaa doctor daawada ay soo qortay markaan google gareeyay waxa ay soo baxay inay side effect badan ay leedahay markaan goojadii ma isticmaalin waa soo celiyay ama ma qaadanba xanuunkina sidii uu yahay duca qabe ama duca qabtaba goojo ama dawo ama shay la isticmaalo aan side effect lahayn ma jiro laakiin muhiimada uu dhakhtarka wax u soo bartay ama hortaada u soo fariistay ama uu yiri dad oo qaabilaya waa cilmiga la soo bartay oo ah in dawooyinka laga faa'iideysto muddana loo qoro qofka lana la socdo side effectigeedana laga badbaadiyo laga ilaaliyo oo yani dawadii iyo progressionka cudurka iyo adiga saa u fiicnaanaysi waxyaabahaas oo dhan inuu dhakhtarkii la socdo kaana ilaaliyo side effect laakiin goojo ama dawo aanan side effect lahayn ma jirto paracetamolka bal google gareeya paracetamol side effects bal fiiriya madaxaada ala weynaanayo waxa side effect paracetamolka sida u daldaleeno wuxuu leeyahay oo keeni karo marka muhiimada dhakhtarka ayaa ah inuu arimahaas uu kala hortago wixii aad daawadan uga faa'iideysan kartidna ka caawiyo oo muddada maxaa keenaa in lagu yiraahdo 2 week isticmaal ama 5 bari qaado ama 10 bari qaado ama igu soo laabo ama 2 xilli isticmaal ama 4 waqti qaado ama bil ka bacdi ma qaadan kar waxa soo war oo dhakhtarku uu sheegay maxaa keeni kara waxa keenayo in side effect-yada aad la kulmay side effect-yo way jiraan oo aanan laga fursanaynin taasoo kalena dhakhtarku waa inuu kuu sheegaa yani goojooyinka qaarkooda aan qorno waxa laga yaabaa cawar yar inay qofka iska dareemo waxa laga yaabaa in markii lagu shubaa qofka uu sida basbaaska oo kale uu ka naxo ama uu la xanuunsado waxa laga yaabaa in cuncun yar ay ku keento waxaas oo markaas dawadaas lagu yaqaano waxa ku leedahay dhakhtarkaada inuu kuu sheego laakiin goojo ama dawo aan side effect lahayn ma jirto haddii aan side effect saas uga carari og tahayna hadda waxaa jira wax la yiraahdo xabasowda waxaa jira wax la yiraahdo malab waxaa jira wax la yiraahdo basal iyo tuun iyo dad waxyaabo mudaawada isku daaweeyaan waxyaabahaas inta raadsatay ama laqdida ama isha ku shubtaya almuhiim adu waxaan kiimikalka ka fogaaw yani ilaahi caafimaadka meel walba kugu dari karaa koob yar inta soo qaadatid oo biyo aad ku shubtid oo 7 faatixa aad ku akhrisid ayuu ilaahi kugu caafin karaa waxaan aslan ba asbaab waay marka hadaaba saas u waswaas badan tahay kale waxa jira wax la yiraahdo طب البديل ama طب النبوي ama al-ahshab waxyaabahaas isku daawe inkastoo aan qiyaasay in hatta waxyaabahaas mudaawaadka ay side effect-yooda leeyihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa 10 qodob oo aan rabo in aan sheego oo aan isleeyahay waxay sabab u yihiin bacdaas ay bukaanada la wareegayaan qodobka ah
haddii goojada uu dhakhtarka kuu qoro ama farmashiisa ka weysto ama ay duruuf kugu dhacdo markaas laga yaabo ama qarashka inaadan u haynin oo ay kuu suurtagaleen inaad meeshii ka iibsatid ama qolooyin adi asxaab aad tihiin ama adi meel kuu furanba uu jiro ama meel aad ku kalsoon tahay aad rabtid inaad goojadii aad ka raadsatid waa samayn kartaa laakiin hal midaan kaa codsanaya goojada waxaa isku daydaa in aad dhakhtarkii aad ula soo laabatid oo aad ka hubisid inay goojadii tahay in kale mooga hadaa qof yani caafimaadka ku dheer aad tahay oo chemical name-kii iyo brand name-kii waxaas aad kala saari karto aad hubin kartid dhakhtarka goojadu kuu qoray iyo tan inay isleedahay oo aad hubsan kartid sidaas aad ku ogaan kartaa anima sheegi karin laakiin bukaan caadi oo Soomaaliyeed hadaad tahay waxaan kaa codsanayaa goojadaas aan meeshaas ka keentay meesha ka keenay dhakhtarkaada ula soo laabo dhakhtarkaada haduu yahay dhakhaatiirta yani bukaanadooda badan yihiin oo laga yaabo in la arkin waxa ka codsataa qolooyinkan joogo war albaabka istaagayaahe albaabka bas istaagayaahe jaanis siiye ee albaabka inta istaagdo waxa taada doctor haye soo goojadan ma ahayn waqti ay qortay haduu kura soo dhawaabna u dhawaaw iska hubi minuu ku yiraahdaan ha waayadiina qaado iska wax ay ka dhibaysa malahan waxaan waa ishaada ayaa dhibaato badan kala kulmi karto goojo qaldan weyna dhacda maaha inaysan dhicin ha isticmaalin dawo aadan ka hubin dhakhtarka taas waa waanadii ugu dambeysay iyo warkii ugu dambeeyay oo aan rabo barnaamijkan inaan ku soo gabagabeeyo yaa liga caroonin waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysateen arimahan xasaasiga oo aan ka wada hadalno